asalaamu calaykum saaxiibayaal waa saaxiibkiin taaman rikaab isku soo laabasho wanaagsan filimku wuxuu ku bilaamayaa bukaatayda layidhaah oo ku guulaysanaya kiis gurigiisa ayuu kusoo laabanayaa aabihii ayuuna la kulmayaa kadib dhalo shambeya ayuu soo qaadanayaa bannaanka ayuuna u soo baxayaa waxaan arkaynaa isagoo geed hoos taagan geedkaas oo ay magacyo iyo taariikho ku qoran yihiin intaa kadib filimka wuxuu dib inugu celinayaa sheekadiisii hore waxaan arkaynaa indar oo bisad caana siinaya isla markiiba wuxuu maqlayaa dhawaaq waa gabadh sarsooti layidhaah oo waxyaalo caada u ah samaynaysa ninkan aad u jeedaan magaciisu waa jayram waana sarsooti aabihii isaguna wuxuu aaminsan yahay dhaqanka iyo inaan laga tegin disbiliin qoftanna waa hooyadeed waxayna leedahay maadaama sarsooti gabadha keer lasoo doonayo cuntooyin baan dibadda kasoo iibinayaa aabbahuna wuxuu ugu jawaabayaa cuntooyinka noocaasa markaan geeriyooda unbaa lasoo iibinayaa halka ninkan indar la leeyahay uu nolosha sharciga necab yahay oo uu jawi kale iskaga jiro isla markiiba jay telefoonka ayaa laga soo wacayaa waxaana loo sheegayaa in arooska gabadhiisa la kansalay oo reerkii wiilku ka boodeen waxaan arkaynaa gabadha keyroo ku qaylinaysa walaasheed maadaama iyadoo ka weyn aysan guursan sababta loo guursan waayeyna ay tahay foolxumadeeda darteed iyada awgeedna waxaan oo dhan ugu dhacaya master jay iyo gabadhiisa ayaa soo raacaya waxayna wiisha ku arkayaan indar oo gabadh la baashaalaya wuxuuna isku dayayaa inuu la hadlo laakiin iyagu maba aha qaar u jeeda isla markiiba dadka bannaanka ayuu sheegayaa waxayna ka odhanayaan ninkan kameer ninkanno xaafadda sababtoo aabiya ayaa ah nin ganacsada oo taajira dhanka kale waxaan aragnaa sarsooti oo maktabada ka shaqaynaysa nin ayaa magaceeda ugu yeedhaya wuxuuna uga mahadcelinaya maadaama ay ka caawiso shaqo xayisiin ay u samaynaysay sidoo kale wuxuu ka codsanayaa in shaqo madadaalo carruurtaa uu hayo uuna rabo inay ka caawiso iyana way ka aqbalaysaa kadibna madaxa ayuu salaaxaya uuna ka tegayaa maadaama uusan jirin nin weligeed ka helay foolxumadeeda darteed shaqo dheer kadib markay soo qabatay waxay isku dayaysaa inay gurigeeda timaado halka indar wiishka ay ku kulmayaan laakiin si kadis ah wiishka ayaa ku xirmaya indarna kuleelka jira awgeed shaarka ayuu la baxayaa iyaduna boonbalaha ayay iska bixinaysaa waxayna ku odhanaysaa waxaad wadid waa qalad waxay awood waayaysaa inay iska saarto boonbalaha laakiin indar ayaa ka caawinaya isla markii wiishka ayaa shaqaynaya meeshana way kasoo tegaysaa laakiin madaxii boonbalaha ayay soo iloobaysaa wuuna u keenaya wuxuuna ku odhanayaa in xabsi muddo dheer ku jiray buug anfacaya ikan maadaama aad maktabad ka shaqaysid isla markiiba buugga ayuu keenaysaa isla markuu akhristo wuu soo celinaya dhanka kale waxaan aragnaa indar iyo saaxiibada oo iskhilaafsan sidoo kale waxaan aragnaa familiga oo cashaynaya ayaa aabaheed wuxuu sheegayaa sarsooti inuu jiro wiil raba inuu guursado oo lacag leh famil fiicanna kasoo jeeda hadalka aabeed kama soo horjeedsan karto waxaana ku qasbanaanaysaa inay la kulanto balse kama helayso kadib markay la kulanto waxay ogaanaysaa in teleefonkiisa uu iloobay way ka dabageynaysaa laakiin waxaa maqlaysaa iyagoo hadalla xunxun ka sheegaya oo xamanaya indarna wuu maqlayay sidoo kale walaashad way ku qaylinaysaa waxayna ku leedahay nin sidan kuu guursanaya ma jire wejigaaga qurxi anna ma raba inaan adiga darta guurla-aan igu dhacday habeenada ka mid a waxaa arkaysaa walaashadoo la hadlaysa saanji oo ah gacalyaheeda ayna u baahan tahay inay isaga la baxsato markay hurutay walaasheed kadib iyadoo cabsanaysa ay soo baxaysaa waxaana imaanaysaa indar albaabkiisa oo waxay ka odhanaysaa ma soo geli karaa markay gudaha usoo gasho waxay ku leedahay waxaan u baahanayna jirkaygiiyo quruxdeeda bedelo sidoo kale aas ka dhigo sida gabadha kula joogto oo kale taasoo ah gabadh moodeela oo qurux badan isla markiiba gabadhii ayaa soo gelaysa waana ay ka xanaaqaysaa sarsooti waxayna bilaabaysaa in cayso sarsootina waa ooyeysaa wuxuuna ku odhanayaa raaligeli imika laakiin qoftan way ku adkaysanaysaa inaysan raaligelinin way xanaaqaysaa dhala ayadha kusoo tuuraysaa waxaana isku dhigay dhaladii indar oo uu dhaawacmaya isla markiiba farmasiya ayay usoo kaxaynaysaa waadiye meesha joogayna booliska ayuu wacayaa iyagoo farmasiga jooga ayay booliska u imaanayaan wuxuuna ku leeyahay dhaqso gaadhiga soo kor laakiin sarsooti ayaa booliska ka maslaxaysa isaguna uu yeelayaa maadaama hadalka sarsooti uu soo xasuusiyey hadalkii xaaskiisii dhimatay indar iyo sarsooti way soo baxayaan laakiin waxaynu weli aragnaa waardiyaha oo weli telefoon ka hadlaya subaxii waxaan arkaynaa sarsooti aabaheed oo xaafadda imaaday kadibna wuxuu arkaa dadka xaafadda oo isaga wax ka sheegaya way soo kaxaynayaan oo waxay keenayaan qolka indar oo waxay arkayaan ayagoo sararta jiifa si qaldan ayay wax u fahmeen oo sarsooti oo shaah u keentay indar ayaa si lama filaan ku dul dhacday indar waana islamarka ay arkeen iyagoo wada jiifa kadibna jay wuxuu bilaabayaa inuu gabadhiisa uu ku qayliyo halkaas ayuuna ku kala go-ayaan waxay samaysaa ayay garan waayeysaa iyadoo baska sii saaran hooyadeed ayaa soo wacaysa waxaana u sheegaysaa walaasheed in la guursan rabo sarsooti arooska walaasheed aad bay ugu faraxday balse waxay ka murugsan tahay inaysan kasoo qayb geli karin maktabadda ayay dib ugu laabanaysaa waxayna isku dayaysaa shaqo inay raadiso meel walba oo ay wacdana shaqo way ka weynaysaa ugu dambayn indar ayay u sheegaysaa xataa meel ay saaxatay inaysan haysan isagana furayaal ayuu siinayaa oo uu soo kaxaynaya wuxuu keenayaa guri qadiima gurigaas qadiimka ah qol faaruqa ayuu leeyahay qolkaas ayuuna dejinayaa guriga aad ayay uga helaysaa kadib waxaynu arkaynaa iyagoo suuqa soo aaday oo alaabo soo iibsanaya indar oo cabaya cabitaan ayay ka qaadaysaa waana cabaysaa markiiba way sirqaamaysaa waxay bilaabaysaa inay waxyaalo waaliya samaysa wadooyinka ayay ku boodboodaysaa halka indar uu iyada ilaalinayay kadib nin ayay boorsa ka dhacaysaa sarsooti ayaa soo qaadaysa balse indar markuu boorsada fiiriyey wuu xanaaqayaa maadaama gudaheeda waxa ku jira uusan ka helin sidoo kale waxaynu aragnaa sarsooti oo isku dayaysa inay indar la hadasho balse uu kala tuuraya ugu dambayntii ninkii ganacsadaha ee boorsada iska lahaa ayay dib ugu celinaysaa inagoo ogaanana inuu yahay indar aabihii dhanka kale waxaynu arkaynaa indar oo naftiisa u xanaaqsan oo khamri iska dherginaya uu soo baxaya wuxuuna imanaya guriga sarsooti laakiin wuu ka weynayaa meel walba uu ka weynaya xataa meesha maktabadda ugu dambayntii uu arkaya iyadoo joogto bas
stationka weliba aad ayay u ooyisay isagana wax walba uu ku sameeyey uu ka raaligelinaya kadibna laabta ayay gelinaysaa sidoo kale aabaheed oo tagsi saaran meesha ayuu ku arkayay wax walba ugu dambeyn waxay ogaanaysaa in ninkii uu ahaa aabihii uuna uga xanaaqsan yahay arrimo hore oo jiray kadibna wuxuu weydiinayaa waxyaabaha familkeeda kala dhexeeya aysan familkeeda u aadi karin wuxuuna isku dayayaa inuu xaliyo waxaana u sheegaysaa inay tahay gabadh aad iyo aad u foolxun qof guursanaya uusan jirin sidaa darteed familkeedu u necab yihiin kadib indar wuxuu keenayaa meel gabdhaha lagu qurxiyo oo uu saaxiibkii leeyahay in yar kadib sarsooti waa lasoo qurxinayaa gabadh aad u qurxood ayaa laga soo dhigayaa indarna wuxuu ku fikiraya haddii familkeedu sidan ku arkaan inay ku farxiyaan gurigeeda ayuuna usoo kaxaynaya iyadoo arrintaa way ka diidanayd laakiin haddana way soo raacaysaa kadib guriga markay yimaadaan waxay arkayaan familkeeda oo tacsideeda dhiganaya iyadoo nool arrinkan markay aragta aad ayay uga naxaysaa aabaheed waxyaabahan oo kale kama filinayn xataa indar aad ayuu u naxaya wuuna kasoo kaxaynaya waxayna leedahay aniga qof adadag ayaa noqonaya shaqadayda ayaana hore usii wadanaya markaan helo nin guursadana aabahay ayaan u keenaya kadibna familkayga way jeclaanayaan markaa kadib shaqadeedii hore ayay dib ugu noqonaysaa dadkana waxay la yaaban yihiin qoftani maadaama ay isbedeshay kadib ninka ay wada shaqeeyaan oo abimiyaa la yidhaaho ayaa wuxuu ku leeyahay waad isbedeshay ee kafee aan soo wada cabno balse iyadu way ka diidaysaa indarna wuxuu arkayaa ninkan oo arrimaha sarsooti daydayaya wuxuuna ogaanayaa inuu iyada ka helay kadibna iyada ayuu imaanaya wuxuuna ku leeyahay ninkaas ka waran sidee waaye iyaduna waxay ku leedahay ninkaas ma bogin inaan la kulmana ma rabo isna wuxuu ku leeyahay ninkaas nin wanaagsan uu shaqaystaa listigiisa ayaan kuu keenayaa warbixintiisao dhan ayaana ku qoran waa inaad fiirisaa isbuuca xigay abimayu waa uu la kulmayaa kadib waxau ka codsanaya inuu guursado wuxuuna ku leeyahay xidhiidhiyo filumus diyaar umayhi ee aan isguursano kadib indar ayaa soo wacaya wayna ku dhegaysanaysaa maalinta xigta ayay kulmayaan wuxuuna ka odhanayaa wiilkan ayaan kuu soo helay waana wiil wanaagsan wuuna shaqaystaa laakiin waxa u sheegaysaa in abamayi ay isguursan rabaan oo uu guursi usoo bandhigtay isagana uu ka aqbalaya indar maalinba maalinta kasii dambaysa qalbiga ayaa kasii jabaya oo waxaad moodaa inuu jacayl dhaba u qaaday sarsooti balse maalintii dambe ayay sarsooti u keenaysaa infeetada garooskeeda waxayna ku leedahay qofka ugu horreeya ayaa tahay kasoo qaybgal balse isaga arrintaa kuma faraxsana wuxuuna bilaabayaa cabitaankiisa inuu iska cabo xaaladiisana aad ayay u xumaanaysaa kadib aabaheed ayuu arkayaa wuxuuna isku dayayaa inuu invitationka arooskeeda uu siiyo wuxuuna ku leeyahay gabadhaada arooskeeda kasoo qaybgal wuuna diidayaa ugu dambeyn waxaa lasoo gaadhay maalinta arooska ee sarsooti iyo abamayi maxkamadda ayay yimaadaan si ay isku guursadaan indarna abimayo ayuu wacaa balse uu ka qaban waayey sidoo kale laweerka maxkamaddu waxa uu ku leeyahay haddii aydan isguursanayn meesha iga taga way soo baxayaa guriga abimayo ayay imaanayaan kadib indar ayay ka odhanaysaa waa inaad ninkan garaacdaa balse indar ayaa iyada aad u celcelinaya abimayo aabihiisa ayaa banaanka usoo baxaya wuxuuna ku leeyahay arrimaha familkaaga waan la socdaa ee wiilkaygu kuma guursanayo waxaan arkaynaa sarsooti oo indar ku qeylinaysa kuna leh maxaad ninkan u garaac weyday sababtoo ah waa khiyaanoole waxaana imanayaan hoteelka toddobabaxa ay ku geli lahaayeen waxayna leedahay halkan ayaan seexanaya maadaama lacagtii la dhiibay kadibna indar ayay shumanaysaa habeenkaana iyagaa wada seexanaya subaxii markii la gaadho indar wuxuu daaqada ka arkaa abamayo inuu soo laabtay kadibna sarsooti uu laabta gelinayo sarsootina indar ayay farriin u soo dirtaa waxay ku leedahay abumayo ayaa i yimaada oo isaga ayaana raacay indar uu qalbijaba wuxuu qorsheynaya inuu magaalada iskaga tago alaabtiisa ayuu urursanayaa si lama filaan ah sarsooti hooyadeed ayaa albaabka usoo qaraacaysa waxayna arkaysaa indar iyo gabadheed oo meel ku wada sawiran oo faraxsan indarna wuxuu leeyahay anigu meesha waan ka tegi rabaa magaaladana ma sii joogayo kadib waxay ku leedahay gabadheeda yar waa la guursan rabaa ee invitationkan sarsooti iga gaadhsiiya invitationkii ayuu abamayo u geynayaa balse abamayo wuxuu u sheegayaa markii ugu dambaysay inay kala tegeen labadooda kadib indar wuxuu isku dayaa inuu raadiyo sarsooti balse meel walba uu ka weynaya ugu dambeyn wuu soo helayaa wuxuuna ka soo helayaa meel duura iyadoo fadhida way ka xanaaqsan tahay maadaama uu sii daayay isaguna wuxuu ku leeyahay markaas toos inaad u kala tagteen abamayo iyo in kale waxaan ku ogahay ma laha kadib waxay ku leedahay habeenkaa wixii dhacay wax yar bay ahaayeen ee stresskaaga uma baahniya iga tag laakiin si walba uu ahaato kama tegayo way jeceshahay laabta ayayna gelinaysaa wuxuu arkayaa kaadh caafimaad iyadoo wadata kadibna wuxuu ogaanayaa in xaaladeeda xun tahay isbitaalka ayuuna keenaya daktarku wuxuu ku leeyahay abamayo arrintan u ogaa waxaan u sheegay waxyaabaha qaar ee caafimaadka dhibaya inay iska ilaaliso kadib isagoo xanaaqsan ayuu abamayo u imaanayaa si xun ayuu u garaacaya wuxuuna ku leeyahay markaad ogaatay inay xanuunsan tahay miyaad ka fogaanay abimayuna wuxuu leeyahay aniga inaan guursado waa rabay balse iyada iga diiday sidoo kale ayadaa igu tidhi arrintan indar ha u sheegin kadibna waxaanu arkaynaa indar oo sarsooti teleefonkeeda fiirinaya wuxuuna ogaanayaa in guurka ay jeceshahay xoogaa kadib way soo kacaysaa indarna wuxuu leeyahay lama filaan ayaan ku hayaa ee soo bax wuuna soo kaxaynaya wuxuuna keenayaa guri aad u sharaxan iyaduna waxyaalaha meesha ka socda aad bay uga helaysaa kadibna tv-ga waxa uu ka tusaya walaasheeda ka yar oo la guursanayo sidoo kale waxay arkaysaa aabaheedu aad u faraxsan iyadana farxadda ayay la ilmeynaysaa indarna ma sugi karo oo wuxuu leeyahay inaan ku guursado ayaan rabaa iyadoo way ka diidaysaa oo waxay ku leedahay inuu kuma wanaagsanin waxaana laga yaabaa berri ka maalin aan geeriyoodo haddana murugo dheer xaaladeeda caafimaad ayaa xumaanaysaa kadib isbitaalka ayay ku laabanaysaa dhanka kale indar isna khamri ayuu ka dhargayaa wuxuuna tegayaa guriga familka sarsooti wuxuuna ku leeyahay gabadhan waxyaabo qaldan ayaa lagu samaynayaa mar dambana ma arki karo idinkoo dhibaya aabaheedna dhirbaxa ayuu ku dhufanayaa marka subaxii la gaadho booliska ayaa u imanaya waxayna ku leeyihiin dadka xaafadda ayaa kusoo dacweeyey maadaama dhib aad geysid sarsooti xaaladeeda way soo fiicnaanaysaa isbitaalka ayayna kasoo baxday isbitaalka hortiisa ayay ku sugaysaa balse muusan imaan maxaa yeelay booliska
ayaa raba inay xidhaan balse isaga uu kasoo baxsanaya booliska halka iyaduna buuggii uu fariimaha ugu qori jiray ay akhrisanayso kadib taleefankiisa inay wacda ayay isku daysaa balse wuxuu kaga soo tegay meeshii markii hore laga soo kicinayay ciidanka ayuu la dagaalamayaa si uu ugu yimaado balse taliyaha ayaa u sheegay meesha uu rabo inuu geynayo laakiin uu 10 daqiiqo oo keliya uu haystay kadibna uu xidhayo kadibna sarseeto ayuu imanaya wuxuuna ku leeyahay isbitaalka maxaa uga soo tagtay balse waxa uu sheegaysaa inay jeceshahay oo gurkiisa diyaar u tahay taliyaha ayaa u imaanaya wuxuuna ku leeyahay waqtigaagu uu ka dhamaaday balse iyada ayaa isku duubaysa waxayna ku leedahay iga kaxayn taliya kadibna katiinada ayuu ka furaya uuna iska sii daynaya iyagoo wada fadhiya ayaa waxay ku leedahay inta ayaa laga yaabaa isna intuu xanaaqo bastoolada qaata ayuu tegaya sarseeto aabaheed wuxuuna ku leeyahay saaruu daraadeed qof waan u dili karaa anigana waan u dhiman karaa ha isku dayna inaad ilinteeda banaanka keentaan sidoo kale wuxuu u sheegaya inuu isagu guursanayo maalintii xigtay labadooda ayaa imaanaya maxkamadda si ay isku guursadaan sidoo kale taliyihii ayaa ah markhaatiga koowaad halkaas balba fara badan ayaa lagu galaa laakiin ballanta waalidka waa uu kasoo horjeesanaya maadaama uu aabihii necab yahay wuxuuna leeyahay labadeena shuruudlaan aan isku guursanno intaysan isguursan si lama filaan aabaheed ayaa albaabka kasoo gelaya kadibna way cararaysaa hab ayayna siinaysaa waxayna ka codsanaysaa inuu arooskeeda dhaco wuxuuna leeyahay balka war haddii aanan ogolayn isla markiiba indar gacantiisa ayay sii daynaysaa aabaha ugu dambeyn waxa uu sheegayaa in indar wiil ka wanaagsan inaysan helayn shalayna uu ugu imaaday inuu ugu dego gabadha qof ka ilmaysay inuu dilayo daraaddeedna uu u dhiman karo kadibna arooska waa la aqbalaya meesha ayayna isku guursanayaan laakiin iyadoo goobta arooska la joogo ayay xaaladeedu xumaanaysaa isla markiiba isbitaalka ayaa la geynayaa aabaheed iyo hooyadeed aad ayay u murugsanayeen maadaama ay ku arkeen gabadhooda iyadoo xaalad xun ku jirta kadib dhakhtarka ayaa u sheegay in gabadhooda aysan waqti badan u hadhin kadib indar ayaa waxa uu tegayaa aabihii wuxuuna weydiinayaa geed gurigooda ku ag yaalay booskaasi haddii uu jiro geedkaasina uu ku yaalo laakiin aabihii waxa uu ku leeyahay qof miyaa soo deshay dhiig ayaa kaa muuqday hadda ka horna wuxuu ka aaminsan yahay qof inuu dilay kadib waa uu kasoo tegaya xaaskiisa ayuuna isbitaalka ugu imaanaya wuxuuna uga sheekaynayaa aabihii siduu garabkiisa u cileeyay filimku wuxuuna celinayaa dib wuxuuna nooga sheekaynayaa aabihii siduu garabkiisa u cileeyay hooyadiisa ayaa adeerkiis dishay si kas aan ahayn isna dembiga ayuu dusha saartay oo xabsiga ayuu galay wuxuuna islahaa aabaha ayaa bukaato weyn ah oo kusoo badbaadinaya balse garabkiisa ayuu cileeyay iyadana waxay ka codsanaysaa inay wax walba u dhacaan aabihiis uu cafiyo xoogaa way wada sheekaysanayaan kadib way macasalaameynaysaa labadooda u wada ilmaynayaan waxayna ku leedahay aad ayaan kuu jeclaa wayna geeriyoonaysaa welibana hortiisa hooyadeed iyo aabaheed ayaa u imaanaya laabta ayuuna gelinaya isagoo aad iyo aad u shoogsan kadib aabihiis ayaa isbitaalka imaanaya wuxuuna ka odhanaya hadda ka hor adiga ayaan garabkaaga faarujiyey laakiin hadda xaaskaaga aniga ayaa kuu badbaadinaya balse indar waxa uu sheegaya inay xaaskiisa geeriyoota aabihiis ayuuna wuxuu ku leeyahay iga raallina qaabo laabta ayuuna gelinaya kadib waxaanu u laabanaynaa filimkeena bilowgiisii abikaataha caanka ahi qofkana ma aha ee waa indar sidoo kale xaaskiisa sarsooti ayaa ku aasan geedka hoostiisa waxaana uu soo dhoqdaa mar walba filimku halkaas ayuu ku dhammaanayaa haddii aad rabtid inaad socoto filimaanta noocan oo kale ah fadlan channelkeena gudaha u gal subscribe saar gambaleelkana furo mahadsanid